wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Muumin Said uu heliyo gudoomiyaha gobolka Maroodijeex ayaa kormeer ku tagay mashruuca dhul beereedka Abuurriin ee deegaanka Faraweyne. wafdigan oo hogaaminaya wasiirka beeruhu markii ay gaadheen deegaanka Abuurriin waxay u kurgaleen xaydaabkii fidinta beeraha ee mashruuca bacriminta beeraha ee wasaaradda horumarinta beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo dhawaan xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhul beereedkaasi Abuurriin ay ka bilaabayso mashruuca ugu weyn Afrika ee tijaabada iyo wax soo saarka beeraha kaas oo iska kaashan doonaan xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha caalami ah. markay ay soo dhameeyeen kormeerka dhul beereedkaasi waxaa halkaasi lagu qabtay munaasabad lagaga waramayo mashruuca ay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka bilaabayso deegaanka Abuurriin waxaana halkaasi ka hadlay Suldaan Ismaaciil iyo ugaas jabana oo kamid ah bahda dhaqanka Soomaaliland waxaana ay ka warameen faa'iidada uu leeyahay mashruucaasi qaranka Soomaaliland iyagoo sheegay in dhul beereedka Abuurriin uu ka wanaagsan yahay dhinaca tijaabooyinka iyo wax soo saarka beeraha. waxa weeye haddii aad reer Abuurriintiin waxa la idinka baahan yahay wixii aad ilaahay ka doonaysay waad hesheen nimcana waliba waynu ku jirnaa sidii maalintii uu fadhiistay madaxweynuhu meesha maalin qura roobkii naga muuqaalin waka ay xinada yaacayo oo nimcun baa xila yimaada wixii aynu ballan qaadnay markuu gudoomiyaha xisbiga ahaa inaynu inaku fulino isaguna wuxuu ballan qaado roob oo runu ballan qaado inuu fuliyo wasiirkuna markasta idin yimaado ixtiraam bidikam markastoo faa'iido badanaysa danta gaarka danta guud waayo danta guud dadka way wada gaadhaa laakiin wax gaar loo leeyahay wax laga yaabo dhul dhan oo iska qaydan oo cidna waxba anfac ka soo saaray in inteenan wax ka khayr badan aynu ka helayno ayaa la hubaa horena waa loo hubo ragii joogay waa la ogaa nimcadii halka oo la jirtay inaynu amaamirta dawladda u hogaansano in si fudud oo wanaagsan oo dhow oo isku tuurtuur lahayn loo garab galo wasaaradda horumarinta beeraha oo dhulkii sida ugu wanaagsan ee ugu fudud ee ugu khayrka badan aynu hawshiisii haddii alla ilaa loo gali lahaa waxaan leeyahay waxba yaan si hoose loo hadli dadkeenu si hoose u hadlaan inta badan waxba hoos yaan loo hadli danta guud aynu iska gudoomiyaha degmada Faraweyne iyo hirtuulaha Abuurriin odayaasha waxgaradka deegaankaasi ayaa dhankooda xusay in ay soo dhaweynayaan hawlahan iyo mashaariicahan ay ka wado wasaaradda horumarinta beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland deegaanka Abuurriin iskugu nimadaynu israacnay in marxaati u helay oo ka mid yahay suldaanku ugaasku iyo suldaanku aslan uu ka mar inuu marxaati furay wixii aan maanta soo sameeyay iyo dhulkii aan dawladda har socday in la wada marxaati faro suldaanku marxaati faro cid walba marxaati furtay taas horta wax ilaahay lagu maadiyaa kaasi wixii dawladdu eeyo odayaasha iyo la isugu yeero dadka meesha leh war fiican baa maanta la idinka geenaya reer Abuurriin hadaatiin waayo jow farxad la idin kulmay jow qiimo badan baa la idin kala kulmay ciidan guud haysaanba faragelisay maanta reer Abuurriin baa ugu wanaagsan baan oran karaa gudoomiyaha gobolka Maroodijeex Jaamac Xaaji Axmed ayaa isaguna halkaasi ka hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu go'aamiyay in wasaaradda horumarinta beeruhu ay fuliso mashruuci Abuurriin oo dib loo soo celiyo oo la manaafacadsado sidii uu ahaan jiray arrintaasina guul bay u tahay reer Abuurriin iyo deegaanka Faraweyne waxa loo baahan yahay inaad ka faa'iideysataan oo aad soo dhaweysaan oo aad isgarab taagtaan oo aad hareeraha la qabataan wasiirka gabagabadii waxa halkaasi hadal ka jeediyay isla markaasina ka waramay ahmiyadda ay wasaaradda beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu fadhido dhul beereedka Abuurriin wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Muumin Said waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay ahmiyad weyn siinayso dhul beereedka Abuurriin si halkaasi lagu fuliyo mashaariic waaweyn oo la xiriira tijaabooyinka iyo wax soo saarka beeraha kaas oo ah kan ugu weyn ee Afrika jaarka iyo inta sayr u durka weyn wada garanayna waa laga yaabaa meelaha qaarkood in dad badan ka soo galeen intii xindaabka mashruuc ahaa laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay inaynu soo wada marnay GPS baan ku soo qaadnay intii aynu soconay waxaan ku faraxsanahay runtii in leeg inta dhulku leegyahay iyo runtii waa geeduna ku yaala ayna waxba uga faa'iideen waxaan maanta inagu bishaaraynayaa
inaynu doonayno oo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi uu nagu hormood noogu yahay in halkan noqoto xarun ta ugu weyn ee afrika ee tijaabada iyo wax soo saarka beeraha. xarunta ay noqo halkan marka la yimaado shaqada loo yimaado ee hawsha la wasaaradda beeruhu ka bilowdo cidda wax ka helaysa ee ku manaafacaadsanaysa ee marka u horeyso wax ka helaysa waxa weeyaan cidda ugu dhow ee deegaanka waa reer muxuu ahaay Aburiin iyo deegaanka ku xeelan weeye. waxaan inaga fadhinaa intii uu ahaa Aburiin dee muxuu ahaay mashruucaas intii uu ahaa iyaynu marin doonaa runtii cagafta aynu taagan waynu soo xandaabaynaa waynu soo xidhaynaa waa laga shaqaynayaa aqoon-yahano la keenaya halkan takhasusku beeraha oo iman doona oo soo degi doona oo halkan joogi doona xaruntooda iyo noqon doonta inay halkaa joogaan oo lagu shaqeeyo. haruurkeenii cilmi jaamaca ahaa ee asalka ahaa aynu naqaanay iyo shinnidii dalkan uu lahaa Somaliland siidhkeygii asalka shinnida lahayd inuu soo celin doonaa meeshii aan ku soo celin lahayn aynu dalka ka hagi lahayn aynu dadkeenu wax ka tari lahayn waa halka aynu maanta taagana wey. marka aad waxaanu rabnaa deegaan ahaan inaad nala shaqaysaan. wuxuu inoo sheegay dhool la yare sababtu maanta oo muxuu ahay noo horkacayna ahayd looskii iyo shimbiradii iyo nimcadii halkaa ku cuni jiray markii lagu shaqayn jiray. waxaan ku ballan qaadayaa dhool la yaro haddii ilaahay gaarsiiyo oo hadduu ilaahay ku simo waxaan ku ballan qaadayaa inaynu looskii iyo shimbiradii ayna carruurtaada gaajada marka welwelin marka halkaas soo degno. runtii waynu soo marnay labada dhinacba dhinaca intii xayndaabka ulahaa waan soo marnay intii aynaan iminkanu gaadhin waxaa soo maray iskuduwii gobolka iyo agaasimihii biyaha iyo dhulkii biyaha soo maray GPS bay ku soo qaadeen. waxaynu iskugu soo noqonaynaa aniyo barasaabku inaga tegi mayno waxaan ku soo noqon doonaa maalinta dambe calaamaintaynu soo noqonayno aynu dhigayno calaamadda yaanu soo noqon doonaa. intaa wixii ka dambaysan waxaynu ka wada shaqeynaa inagoo tiima oo wada socona horumar uu inagu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane muuse biixi cabdi. beeraley baan ahay oo waan garanayaa runtii intaan soo marnay maanta waa dhul dayacan weeye inagu gaadho madka haysan. wasaaradda beeraha iyo wasaaradda deegaanku sidaa barasaabku inuu sheegayo go'aan baa soo baxay oo weliba ta'kiidiyey wasiirka arrimaha gudaha oo nagu raacay inaanu ayna jirin haddii wax dambe la soo xidhanayo xoolaha laga ilaalinayo laakiin dhulku noqdo dhul aynu wax ka soo saarno iyo dhul xoolo inoo daaqaan. waxa inoo soo socda runtii haddaynu wada gacmaha isqabsano mashaariic horumar baa inoo soo socda. beerahan nin walba isagoo garanaya beertiisa intay tahay garanaya inaynu iskaashatooyin beeraha si iskugu dhowdhowin beeraha u samayno dabeedna mashaariic laga sameeyo. casaankan aynu dul fadhiyo labada qoodiya iyo sacan iyo muxuu ahaay dibigan aynu ku dul ilaalinayno inaynu ka baxno hore u soconaanu doonno. caalamkana waad la socotiin maanta waad la socotaanoo COVID-19 markuu inagu dhacay wax walba way istaageen macal khudaartii shalay waxaan raadinaynay inay inaga maqan tahay muxuu ahaay tamaadii inaga go'antay. wadanada jaarkeena malaayiinka kun ee qofa ayaa tiradan intaa leeg haddana tamadu keenaya mina ceeb inagu hayn. waxaynu u baahannahay markaa biyaheena inaynu biyaha ka faa'iidaysano inaynu dhulkeena ka faa'iidayno. mashaariicda ugu horeysa een halkaa keeni doonaan iyo guddoomiyaha nagu wada socona intiinaaba ka faa'iidaysan doonta haddii ilaahay raaco. dhinaca kale wasiirku waxa uu soo kormeeray wax soo saarka dhanka beeraha ee Aburiin ee lagu hayo xarunta wasaaradda beeraha ee deegaanka Aburiin iyagoo ay ka warbixiyeen mas'uuliyiinta halkaasi ku sugan. cabdiqaadir cabdullaahi nuur warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa.